galbeed waqooyi ayay samarqanda ka xigtaa waxaana mara webiga jiixoon loo yaqaano oo markaasi hadda dhex mara labadan dowladood ee Uzbekistan iyo Turkmenistan la yiraahdo. Genghis Khan wuxuu ku talagalay inuu bulshada madaxdeedii duntay marka hore baqa geliyo si aan cidnaba uga hor imanin. dabeetana saddex kooxood oo ciidamadiisa ka tirsan ayuu kala diray. saddexda kooxood koox wuxuu u diray iqliimka loo yaqaano Farghana. Farghana waa gobolka ugu xiga China markaasi. dawladda al-Khawarizmiya dhowr iyo 10 dawladood oo imika jira ayaa la isku oran jiray. dhanka China ay xuduud kala lahayd, dhankana Ciraaq bay xuduud kala lahayd. dhankan sare Qawqaaz oo dhan bay haysatay, dhanka hoosena ilaa Sind bay joogtay. webiga Sind mara waa Pakistan, webiga dhex mara Pakistan qaybteeda koonfureed Karman la yiraahdo iyo waxa soo dhamina dawladda ma ka tirsan. marka waa dawlad aad u ballaaran. si hadda waxaan joognaa qaybteedii sare oo ah dhulkii buuraleyda ahaa, dhulkii barwaaqada badnaa, dhulkii dawladdu ku xoog badnayd. qaybtaas sare marka aynu joogno kooxda koowaad wuxuu u diray magaalada la yiraahdo Farghana. Farghana waa Uzbekistan bay ku taallaa. waa magaalooyinka marka iyada iyo Otrar baa ugu xigay dhanka China. 500 kilomitir baa marka bari looga kacayaa Samarqanda oo meeshii uu marka uu joogo duqii Genghis Khan ahaa. koox labaadna wuxuu u diray magaalada Turmud. imaam Tirmid intaba way u akhriyaan. imaam Tirmid magaaladu ka yimi weeyaan saaxiib sunanka wadankan hadda Uzbekistan la yiraahdo ku taala. wuxuu kaloo diray iyadu 100 kilomitir oo qoray koonfur ka soo xigta Samarqandada marka aynu joogno. wuxuu kaloo diray koox kale oo qalcad weyn oo Kalaba la oran jiray oo qalcadihii ugu waaweynaa ee nahru Jawxun ku yaalay. saddexda firqadood buu diray, saddexda meelood buu kala diray. saddexda meeloodba dadkii ku noolaa waa shacab, dhulka lala simay, ragii waa la laayay, dumarkii waa la adoonsaday, carruurtii kadalik. wax kasta oo ka jiray wuu tirtiray. waa ka uu tilmaamayo رواة التاريخ كم دبا وحليه وحيد هذا بيقول إن التتار لا يرتوون إلا بالدماء ولا يسعدون إلا بالخراب والتدمير وإنهم لا يهزمون بيد هذا تتاركو كما هرات بيلان ديق مويان وديق يعبو وحيكلوكو سفينيين ليبانتي يا فرحدي يا براره يا سرادة يا برواقة وحي قادان marka uu ummad la halaagay la tirtiro. yani waa joogkooda, waa ciyaartooda iyo faraxooda iyo reyreyntooda iyo saraadada iyo barwaaqadooda waxay helayaan marka ay dad tirtiraan. ka saddexaad waxay yidhaahdeen waa ciidan aan la jebin. maxaad u malaynaysaa shacab risaalada la gaadhsiinaya ay noocaa tahay, dowladdeedii sarena ay duntay. Genghis Khan ciidamadiisii markaa waxay soo galeen markay saddexda magaalo soo baabi'iyeen ee dadkii la wada baqa geliyay ayaa waxa loo soo kacay Afghanistan waqooyigeeda. waa dhulkan Taajiku degaan. waxa la soo qabtay magaalada la yiraahdo Balkh markay yimaadeen waxaan hore loo arag bay sameeyeen, laakiin dambay kala haayeen. reer Balkh way u soo baxeen, waxay ka dalbadeen ammaan, magaalada inay nabadgelyo ku soo galaan, dadkana ay nabadgelyo siiyaan, lana ogol yahay inay dawladda Tatarku meesha soo gasho. ammaankii buu siiyey, dabeetana wuu dhaafa. wuxuu tagay magaalo kale oo waqooyiga Afghanistan ku taala oo Talaqaan la yiraahdo. Talaqaan iyada markii uu tagay waa dhul qalcado waaweyn leh, xusuun tiro badan leh. dabeetana way istifaaceen. dhowr bilood buu go'doomin ku hayay. dhowr bilood kadib waa la jabsaday. wixii rag sheegan jiray wuu gumaaday. dumarkii iyo carruurtiina farsamadiisii buu ku isticmaalay. wuu soo dhaafay. wuxuu yimi magaalo loo yaqaano Marwa markii uu soo galay waa magaalo weyn Marwe oo Turkmenistan ku taala.
balakht aynu markaa sheegayna uu cahdiga siiyey 450 kilomitir ayay galbeed ka xigtaa magaaladaasuu soo galay magaaladan markii uu ku soo socday reer balkh buu soo maray qoladii uu ammaanka siiyey wuxuu yidhi idinka ammaan baan idin siiyey laakiin bishart way la dagaalgelaysaan waynu wada duulaynaa mar waynu ku wada duulaynaa marka ammaankiinu saasuu ku sugmaya dadkii waa iska baqeen waa aqbaleen أحد الكتاب راغب السرجاني baa wuxuu leeyahy reer balakh mar kastoo muslimka la jabinayo ma sidan bay u dhaqmi jireen balakh waa meesha iminkana maxaa la yidhaahdaa laba meelood oo casrigan aynu nool lahay gaalada caawiyey ayaa ahaa taariikhdii tataarkana labadii kooxood ee caawiyey qola waa kurdida waqooyiga ciraaq degta tataarka way soo caawiyeen dagaalkii baqdaad iyo dhulka lagu qabsanayna way ka soo qayb galeen waynu iman doonaa qolana waa waqooyiga afghanistan qolada joogta labada qole hadda maraykanka soo caawiyay ayaa tataarka markaana caawiyey waxaa la yidhaahdaa reer balakh waxay raaceen tataarkii dagaalkay la galeen ciidan ballaadhan oo uu hogaaminayo Genghis Khan wiil uu dhalay ayaa marwo soo qabtay reer marwi iyagu waxay go'aansadeen inaanay isdhiibin dirirna inay galaan dadkoodii bay mobilize gareeyeen 200,000 dad gaadhaya oo ciidan ay ka dhigeen bay dabadda ugu soo saareen ninkan aan dabadda isku haleelaa la yidhi dabadda muddo la isdilay dagaalkii cabbaar buu socday muslimiintii waa sabreen tataarkiina waa u sabreen waa la isgumaaday akhiiran waa la jabiyey qoladii muslimiinta ahayd waayo nafsiyaadka dadka muslimiinta waxaaba ku jira dee tataarka waa jeysh alaxmarkii ay odhan jireen laysma hortaagin waa jabeen waqca rahiiba baa dhacay muslimiintii 200,000 ahaa intoodii ugu badnayd waa la laayay baaqigiina maxaabiisnimaa loo qabsaday in yar mooyaane kadibna magaaladii marwo la odhan jiray ayaa la go'doomiyey xisaar lagu sameeyey 4 maalmood markay go'doon ahayd ayuu ina Genghis Khan waraaq u qoray ninkii qaa'idka magaalada ka ahaa wuxuu leeyahay niyow wixii dhacay dhace hadda aan nabadgelyo kala saxeexanno waxaan idin siinayaa magaaladiina tan ammaan bishart ammaanka aan ku siinayo waxaan rabaa inaynu kala saxeexanno aad soo baxdo aynu wada hadalno ninkii magaalada madaxda ka ahaa arrinkii wuu aqbalay mar haddii magaalada laga guurayo caynkana ammaan la bixinayo dagaalkiina wuu ku qadhaadh yahay wuu soo baxay waa u yimi markii uu yimi ina Genghis Khan wuxuu faray in sida boqorrada loo soo dhoweeyo waxaa la sameeyey soo dhoweyn weyn xaflad baa loo sameeyey ninkii madaxda ahaabaa meesha yimi waa la ixtiraamay waa la maamuusay kadibna wuxuu yidhi waxa aan rabaa heshiiska aynu wada gelayno in dadkaagii waaweynaana kaala qayb galaan isla markaana dee dawlad weyn baanu hadda nahay oo dhulkii ka talinaysee inaannu dadkii magaalada ama duqayda ahaa ama dawladda saraakiisheedii sare ama waxa kan wixii noo shaqayn karee dee shaqo qaban karana inaannu dooranno heshiiskaa wada gallo ayaan doonaynaa marka adiga waa ku soo dhoweynay noqo duqaydii iyo waayeelkii magaalada noo keen dib buu labtay wuxuu u yeedhay dadkii madaxda ahaa dadkii isaga ka agdhadhowaa dadkii waayo wuxuu u ballan qaaday inuu dhul siin doono inuu maamulka ka qayb gelin doono inay dad laysfahmo noqon doonaan ninkii magaalada madaxda ka ahaa marwe dib buu dadkii ugu laabtay wuxuu keenay wixii magac iyo maamuus ku lahaa magaalada markii uu dadkii soo ururiyey oo soo dhoweyntii loo sameeyey oo meesha yimaadeen ina Genghis Khan wuxuu amar ku bixiyey dhammaantood in la xidho dhammaantood xadhiggaa loo jiiday dabeetana wuxuu yidhi 2 su'aalood oo qudhaan idinka rabaa magaalada wixii maalqabeena liiskooda qora wixii farsamo yaqaanee techniciana xirfadyahanee sanaaciinana liiskooda ay sameeya waxaa loo qoray magaalada wixii dad waxhaysta deganaa ee maalqabeen ahaa
waxaa kaloo loo qoray magaalada wixii joogay farsamo yaqaan. intaasi markay dhacday magaalada madaxdeediina la hayo askarteediina hore loo soo laayay wuxuu yidhi magaalada laga soo baxo dadkoo dhan ha loo yeedho. dadkoo dhan baa la isugu yeedhay. markii ummadoo dhan la isugu yeedhay buu kursi dahaba meel loo dhigay waana Jenkins Khan halkiibuu fuulay. awaamirtaan soo rogayaa buu yidhi hadda amarka koowaad wax allaaliya wixii madaxa shacabka hortiisa ha lagu bireeya buu yidhi. wixii madax ahaayoo dhan dhegtaa dhiigga loo daray waa la gowracay. intaa kadib buu wuxuu yidhi wax allaaliya wixii farsamo yaqaan ah qaraqoram ha loo diro. qaraqoram waa caasimaddii Mongolia markaasi ee tataarka looga talinayay. caalamulislaami iyagaa technologyga dunida markan hogaaminaya, iyagaa farsamada looga dambeeya. wax allaaliyo waa dagaalkii labaad Germany markii la jabiyey wixii lagu sameeyey. wax allaaliya wixii wax aqoon ahaana wuxuu yidhi ha la diro farsamo garanayay. waxaa loo diray qaraqoram baa loo diray. waxaa soo hadhay wixii maalqabeena. wixii maalqabeena buu yidhi iyaga waa in la toorjar gareeyaa ilaa intay ka caddaynayaan wixii khasnad magaaladan taallay meesha ay taallo. wixii taajir ahaana waxaa lagu guray garaaca loo diray iyo tumista. waxii adduun ay hayeen iyana waa sheegeen. magaalada buu yidhi ciidanku ha galo wixii wax fiicanee ثمينة شيء قيمة لي يالا لعق يالا ذهب يالا wax qurux la yaala waxaasoo dhan magaalada laga soo guro buu yidhi. ciidankii magaalada ay galeen wixii wax qiimo yaalay oo dhan baa la soo guray. 3 maalmood ayaa la gurayay magaalada wixii yaallo askartu shaqo kala haynin. wixii magaalada nafle yaala in la ururiyo 3 maalmood baa la gurayay baa la yidhaahdaa. xataa guritaanku wuxuu gaadhay bay yidhaahdaan boqor hore boqorradii muslimiinta ka mid oo sanjar lo odhan jiray ayuu yidhi xabaashiisa ha la qodo isna dahab iyo wuxuunbaa malaa ku jiray. xataa boqorkii sanjar lo odhan jiray xabaashiisii waa la qoday iyadoo la baadi doonayo wuxuun in la heli karo. intaasi markii ay dhacday ee magaalada wixii hanti yaallayna la qaatay ayuu amarkii kama dambaystaha bixiyey. wuxuu yidhi magaaladani wayna la dagaalantay ciidan baana inugu soo saartay waa maanta laga bilaabo ha la laayo dhammaantood. wuxuu soo rogay qaanuun labaad oo ah dadka magaalada jooga oo dhan in la laayo. magaalada dhammaanteed baa la dilay baa la leeyahay. ibnu lathiir fii kitaabihi alkaamil wuxuu leeyahay ina Jenkins Khan wuxuu amar ku bixiyey markii dadka la wada laayay in meydka loo tiriyo buu yidhi. dabeetana meydkii baa la soo tiriyey. tiradii meydku wuxuu noqday buu yidhi 700,000 goob qura la wada dhigay. 700,000 oo qof oo hal magaalo degan. yacni waxaad ka fakertaa cawaasimtii dunidu dhulkaasay ahaan jirtay waaga meelaha ugu badan ee bini aadam dega bay ahaan jirtay. 700,000 oo qof baa madaxa laga jaray. magaaladiina buu leeyahay marwo lo odhan jiray ikhtafaa dikruha min ataariikh buu leeyahay. warkeedu taariikhda halkaasuu kaga baxay. intaa markii ay sameeyeen bay ka dhaqaajiyeen. waxaa la qabtay magaalo la yidhaahdo Nisabur. Nisabur iyana waa magaalo weyn oo Khuraasaan gobolkaasi ka mid ah. waxay ku dhacdaa waddankan hadda Iiraan la yidhaahdo waqooyi barigiisa bay ku taallay. Nisabur markii uu yimi reer Nisabur iyana way isku dayeen inay isdifaacaan. 5 maalmood ayuu go'doomiyey. go'doonkaa 5 maalmoodii markii uu dhacay oo xisaar lagu hayay oo dadkii baqeen oo naftii isugu timi oo wararkii marwe iyo dee samarqanda iyo bukhaare iyo talq iyo wixii uu magaalo soo baabiyey warkoodii la hayo. dadka waxaad mooddaa intaan laba soo gaadhin inay geeri baqayaan. yacni baqdin daraaddeed inay geeriyoonayaan ayuu akhiiran magaaladii furtay. dabeetana wuxuu yidhi magaalada dadka ku jira oo dhan dabadda ha loo soo saaro meel saxaaraha la isugu soo saaro. magaalada markii dadkii ku jira oo dhan dabadda loo soo saaray ayaa waxay sheegayaan ina Jenkins Khan baa loo tago waxa la yidhi magaaladii hore aynu laynay dadkii badhun baa seeftu ku dhacday oo iyagoo aan dhimanin laga dareeray. dadku may wada dhimanin
dadkani waa dad raba inaan qof noolaanin almuwafaq